badda dhexdeeda ku jirnaa hordhaban ka ciido insha Allah asxaabta haddaan ka soo degay garoonkii diyaaradaha ee Male oo ah caasimadda dalka Maldives Thank you bro asxaabta haddaan ka soo degay garoonkii diyaaradaha ee Male oo ah caasimadda dalka Maldives waxyaabaha cajiibka aan ku tusi doono goordho ayaa waxaa ka mid ah in airportkan uu kaga duwan yahay dhammaanba airportada aan maray viewga aadka u quruxda badan oo markiiba ishaadu ay ku dhacayso halkaana waxaa ku diyaarsan laashashka iyo doomaha noocii raaxada loogu talagalay iyo quruxda oo halkaasi kugu diyaara dhanka kalena iyaguna waxaa ku diyaara diyaaradihii oo dadka ay u safri doonaan jasiiradaha kala duwan goordho waxaan tegi doonaa mid ka mid ah jasiiradaha ugu qurux badan dalkani Maldives nala soco sidoo kale isla airportka intaanad ka fogaanba xeeb yaroo aad u qurux badan baa taalla oo ah istaankii doonyaha iyo waxa weeye haddii ay beedmo diyaaradaha kala duwan ee dadka halkan u qaadaya jasiiradaha kala duwan ee loo dalxiis tagayo saad wada arkaysaan biyuhu waa nadiif aad bay runtii u qurux badan yihiin dhan kastana waa ay kaga hareeraysan yihiin magaalada airportka iyo dhanka kale iyo qaybaha kale magaalada runtii sida halkaa ka wada arkaysaanna doonyo aad u qurux badan oo loogu talagalay noocii luxury-ga ah ayaa iyaguna goobta yaalla waad kaxaysan kartaa waxay ku geyn karaan haddii ay beedmo jasiiradda aad u dalxiis tagayso this is the best place I have ever seen tagaasida airportka magaalada caasimadda ee Maldives ee Male yaalla aad bay runtii kala duwan qaar waa doonyo qaar waa diyaarado kuwa kale soo harayna waa kuwan oo tagaasi caadi ah marka waxay ku xiran tahay sida adigu aad u dalxiisayso iyo sida adigu habaysatay safarkaaga anagu dooma raaci doona haddii ay beedmo nala socda doontii baan hadda soo kornay saad wada arkaysaan asxaabta goordhona way nala dhaqaaqi doontaa marka aad tegayso jasiiradaha kala duwan waxaad raaci kartaa diyaarad waxaad raaci kartaa markab ama doon sida anigoo kale sidoo kalena waxaad raaci kartaa waxa weeye labadaas marka anigu waxaan raacay doon baan raacay asxaabta sida wada arkaysaan hadda waxaan soo gaadhnay jasiiradii aan soo safarnay waa Maafushi ayaa la dhahaa mid ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan ee ku yaalla dalkani Maldives waxaanu ka nimid magaalada caasimadda ee Male jasiiraddan maalmo kooban ayaan joogi doonaa haddii ay beedmo waxaana idin tusi doonaa quruxdeeda iyo sida ugu quruxda badan aad ugu dalxiisi doontaan jasiiraddan Maafushi aan joogno maanta isbitaalkeedina waa ka isbitaal yar aad u qurux badan bay leedahay runtii meel kasta waxa weeye waxa ka aad ka arkaysaa doog iyo cagaar aad u qurux badan baabuurtii gargaarka degdega halkaas diyaar ku yihiin adiga arkaya waa isbitaal yar oo ku dhex yaalla jasiirad yar oo haddana waxa weeye aad u qurux badan runtii iska bilaabo asxaabta waxyaabaha kale ee qabiilada ogaataan waxaa ka mid ah in bangiyada waddankeenu ay fududeeyeen sidoo kale in meel kastoo caalamka aad ka joogto aad ku isticmaali karto adigoo si fudud uga helaya dhammaanba lacagaha waxa weeye kugu jira akoonkaaga
ayuubahanna waxay ii fududeeyeen inaan ku dalxiisi karo meel kastoo caalamka ah jiro taasina waa guul kaloo inoo soo kordhay asxaabta jasiiraddan aad bay runtii qurux badan mid ka mid ah jasiiradaha cajiibka ee ku yaalla dalka Maldives haddii aad isbaatana waxa weeye dalkani ka muuqato goobaha ku dalxiisi doonto runtii هذا شك والله قريب Yeah, thank you, bro. Bona,